asalaamu calaykum asxaabta. Arrintii shalay aan idiin sheegay oo dowladda Mareykanka in la soo qarxiyey oo wariye Tifatirassar ah oo ka tirsan wargeyska The Atlantic in madaxdii ugu sarreysay waddanka Group Jar oo Signal intay isugu yimaadeen haddana ay ka hadlayeen weerar oo qorsheynayeen ama qorshaha weerar la doonaya in lagu qaado Xuutiyiinta 15kii bishan in si qalad ah isaga loogu soo daray wax kasta oo ay dhahayeen oo qoraal ay soo qorayeenna uu isagu la socday arrintaasina isaga xitaa la yaab ay ku noqotay markii arrintaasi ay soo baxday shalay waatay Congressku ay su'aalo weydiiyeen taliyaha nabad sugidda qaranka Tulsi Gabbard iyo sidoo kalena taliyaha CIA-da John Ratcliffe arrintaasina ay sheegeen laakiin waxay sheegeen ammaanka qaranka wax khatar ku ah inaysan arrintaasi jirin. Trump sidoo kale waa uu beeniyey la taliyihiisa ammaanka qaranka Mark Waltz waa uu difaacay wasiirka gaashaandhigga Pete Hegseth sidoo kale arrintaasi waa uu beeniyey. Marka wargeyska The Atlantic maanta haddana mar kale waxay soo daabaceen fariin qoraaleedyo kala duwan oo badan ayay soo bandhigeen sida hadda qoraalka sare aad ka aragtaan. Marka waxay leeyihiin ninkan waxa uu leeyahay aniga been ayaa sheegaysa ayaa la yiri. Marka waa kuwan bal fariin qoraaleedyadii dadka shacabku ha arkaano. Marka waxa ay diideen mas'uuliyiinta dowladda maadaama ay yiraahdeen wax ammaanka qaranka khatar ku ah ma aysan ku jirin fariin qoraaleedyadan. waxa ay senataradu ay weydiinayeen shalay senatarada dhinaca sirdoonka su'aalaha weydiinayo xubnaha ku jiray groupkaasi maxaad u diidan tihiin in aad soo bandhigtaan fariin qoraaleedyada. Marka Jeffrey Goldberg oo wargeyska The Atlantic tifatirayaashooda kuwa ugu sarreeya ka mid ah ayaa qoraalada mar kale soo bandhigay fariin qoraaleedyadii Signal ay isku weydaarsadeen groupkaasi oo ay ku wada jireen madax sare uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha dibadda taliyaha nabad sugidda taliyaha sirdoonka qaranka dhammaanba iyo weliba la taliyaha ammaanka qaranka iyo madaxweynaha xubnahaasi oo idil ayaa ku jiray groupkan. Marka sidaas darteed arrintan waxa laga yaabaa marka inay weji ka yeelato waxa la leeyahay Trump waa in xubnaha qaarkood ay iscasilaan amaba uu xilka ka qaado laakiin Trump wuxuu yiri arrintan la taliyaha qaranku qalad uu sameeyo ka bartay isaguna waa uu baqirtayba waa la taliyaha ammaanka qaranka ee madaxweynuhu Mark Waltz waa ninka ku soo daray in groupkan sida qaladka ugu soo daray wariyaha Jeffrey Goldberg. Marka isaguna waa uu qirtay oo arrintaasi qalad dhacay ayay ahayd ayuu yiri. Marka laakiin in weerar qorshaysnaa oo xitaa waqtiga la qaadayay hubka la isticmaalayay meesha lagu qaadayay waxyaabahaasi oo idil faahfaahsan ay ku jiraan waxa la leeyahay haddii ay ogaan lahaayeen ka waran Xuutiyiinta ay u sii diyaar garoobi lahaayeen ay gantaaladooda difaac intay sii rakibtaan diyaaradahaasi Mareykanka nolosha ciidamada Mareykanka ayaa lagu wayn lahaa. Marka arrintaasi maamulka Trump waxay leeyihiin qof isku casilaya qof xilka laga qaadaya ma jirto laakiin arrintu waa ay sii ballaaranaysaa maanta xitaa mar kale Tulsi Gabbard oo la taliyaha sirdoonka qaranka mar kale sanadku su'aalo kale ay weydiinayeen maadaama kulankooda ama su'aalahoodu waxa ahayd mid horey u qorshaysnaa shalay iyo maantaba horey ayay Congressku ugu yeereen. Marka arrintan ayaa soo baxday iyagoo ballansanaa in su'aalo ay weydiiyaan xubnaha sanadku ayaa arrintan soo baxday. Marka shalay iyo maantaba su'aalihii ayaa weli la weydiinaya. Marka Tulsi Gabbard maadaama iyadoo ay ku jirtay groupka waxay leedahay arrintaasi guddiga ammaanka qaranka waxa laga weydiiyay wasiirka gaashaandhigga iyadoo waa iska fogeynaysa. Marka arrintiin waa sii ballaaratay oo fariin qoraaleedyo kala badan sida aad aragtaan ayuu soo bandhigay ninkii Jeffrey Goldberg ahaa wargeyska The Atlantic ka tirsanaa. Marka waan arki doonaa arrintan halka ay ku dambeyso. Maamulka Trumpna ma muuqato in Trump uu qof xil ka qaadayo ama qof uu xil isku casilay waxay leeyihiin arrintan qalad dhacday waaye waanan baranay hadda kadibna ma dhici doonto. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta.